ciyaartoydii xulka kubadda cagta ee gobolka saaxil ku ciyaarayay ee uga qayb galay ciyaarihii gobolada Somaliland ee dhawaan wareegii koowaad lagu soo gabagabeeyay gobolada Awdal iyo Togdheer ayaa maanta maray warbaahinta kula hadlayeen magaalada Berbera waxa ay daboolka ka qaadeen inay ka talaasuna isla markaasina iska casileen wareegii labaad ee ciyaarihii ay ka qayb gali lahaayeen ee ka dhacay caasimadda Somaliland ee Hargeysa geesta kale waxa ay dhaliileen maamulka gobolka saaxil kuwaasi oo sheegay inaanay ka helin dhiirigelintii ay ku lahaayeen gobolka saaxil waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo arrimahaasi tibaaxayana waxa ay sheegeen mar labaadka aan ku hadlay afka ciyaartoyda waxay xulka gobolka kubadda cagta saaxil waxaanu si habsami aan u afgaran weynay maamulka gobolka saaxil oo ugu horeeyo barsaabka gobolka saaxil markaas oo aan ka weynay qadarin hay'ada dhinaca dhaqaale dhinaca caalamiinto حتى الآن سيدان بورا ونبي وأنا على متقين وأنا أوروري وقبلت كله هرسوا على متينيا مركا وحنا عن صاف قرني إن أنا نقص كعسلو مركي قبل الصاحب دان هاي عياتيدا وحنا نسقي عسلي برسافك أودي برسافك أو مركي هورنا رشقي إمي كنا هاي وشقيتي نلودي شوشي قبينا أو شيء سر قبي أيام وعنبرين هذا نعيش قبل صاحب وروح سلام يا برشوية رير سوماليلاند gaar ahaan gobolka saaxil waxaan anoo ku hadlay afka sportiska gobolka saaxil ee gobolka waxaan leenahay maanta uu gabay barsaabka gobolka saaxil ee maamulka iyo waxa gudida ka shaqeeya sportiska gobolka saaxil inay u helaan hantidoodii ay u helaan dhiirigelintoodii ay u helaan maanta waxaanu u eegnahay kooxaha yaryar ka ciyaara Sarobida waayo maanta goboladii kale waxay ku xareysayeen Hargeysa doogag bay ku alaamiteen maanta ilaa alaana annaga uniform aan ku ciyaarno kubadda cagta ayaan nalooyin waxaan nalooyin waxaan sheegayaa barsaabka gobolka saaxil hay doonto cid u ciyaarto gobolka saaxil matasha waxaan halkan ka cambaareynaa dhammaan madaxda iyo maamulka gobolka saaxil kuwaas oo aanu ka weynay dhammaan wixii aanu xaq ugu lahayn iyagoo gabay doorkoogii oo kula xulka gobolka saaxil sportiga ilaa maalintii aanu boor markan nimi wali cid waxna tartay oo ama naqacan qabatay ama ururisay ama training wixii aanu ka sugeynay wixii dhaqaale aanu ka sugeynay haba yaraatay waxaanu ka haynaa ma jirto markaas waxaanu go'aan ku gaarnay anagoo dhammaan ciyaartooydeedu aanu ka midaysanahay in aanu iskaga tanaasulno dhammaan positionkii iyo kaalintii aanu kaga jirnay xulka gobolka saaxil sportigiisa dad aan meel loo dirsaday oo haddana markii ay ka yimaadeen meeshii dib loo eegi waayay barsaabka gobolku marka hore si wanaagsan nolol shaqeeyo haddaan ciyaartoydii gobolka saaxil Soomaad garanay marka xigta halkan markaan saa u nimi ciyaartoydii kale waa la wada ogyahay sida yihiin goboladii kale ku kaalmeeyeen garoonkii dooga lahayd ku kaalmeeyeen annagana xitaa aan dib noloma soo eegin Soomaad garanay marka anagu dhamaantii waxaan isku raacsanahay inaan hadalkan ka soo baxay ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee gobolka saaxil ayaa ku soo beegmaya xilli ay xaaladda gobolka saaxil aanay ahayn mid salka dhulka ku haysa geesta kale waxa uu hadalkani salka ku hay xilli ay caasimadda Somaliland ee Hargeysa ku xaroonayaan 8 kooxood ee ka soo kala baxay gobolada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Berbera.